السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channel كيغا ومنا كورنر waxaa idin rajaynaa insha Allah kheyr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan fiidiyoga maanta sidaa title-ka ka aragtiin waxaa idinla wadaagayaa jimicsiga iyo faa'iidadiisa iyo ahamiyadiisa muhiimkiisu u yahay qofkii rabo inuu miisaan u iska rido waxaa idin leeyahay marka hore like iyo share iyo subscribe ha naga ilaabina asxaabtiina la wadaaga wixii diet ku saabsan oo dhan channelka waad ka helaysiin marka ha moogaanina sidoo kale waa idinkaga mahad celinaya ila socodka qurxoon ay idila socotiin dabcan qofkii raba inuu miisaan iska dhimo waa muhiim inuu jimicsi sameeyo ama dhaqdhaqaaq sameeyo dhaqdhaqaaqaas nuucu ahaadaba haddaa rabtid in aad natiijo heshid oo faa'iido aad heshid waa qasab inaad dhaqdhaqaaq iyo jimicsi samaysid maxaa jira dhay cuntadan uu qofka cunaayo kaliya ama daayetka kaligiisa haddaad isku halaysid waxaa laga yaabaa miisaan badan hadduu kaa dhaco korka inuu balaq kaa noqdo ama korka xoogaa uu kaa jilco marka waa muhiim marka aad damacdid in aad miisaan iska ridid jimicsi inaad samaysid ama dhaqdhaqaaq maxaa jira dhay faa'iidooyin badan buu leeyahay kaliya ma aha xagga miisaan dhimista laakiin waxyaabo badan xagga maxay ahayd maskaxda wadnaha sidoo kale dadka sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba waa muhiim jimicsiga maxaa jira dhe qofka bini'aadanka wuu u baahan yahay xitaa haddaad jiro aadan qabin oo miisaan dhimis aadan ku jirin waa muhiim inaa isbuucii 3 jeer ilaa 4 jeer dhaqdhaqaaq ama jimicsi samaysid waxay u fiican tahay xataa maskaxiyan iyo maxay ahayd qofka habinimadiisa qofkii jimicsi sameeya ama dhaqdhaqaaq sameeya badana qof oo habi ah oo noloshiisa ku faraxsan waay laakiin haddaa guri ku jirtid oo aadan dhaqdhaqaaq sameynin oo mar walba aad fadhidid waad ka dareemi kartaa jirkaaga iyo maskaxdaada iyo caafimaadkaaga xitaa qofka jimicsiga sameeyo jirooyin badan kuma dhaco yacni maxay ahayd qadar ilaahay kow laakiin jimicsiga waa muhiim maxaa jira dheh wuxuu maxay ka burinayaa jirka infectionka iyo maxay ahayd waxyaabaha cudurrada buu ka ilaalinaya marka waa muhiim in qofka maxay ahayd jimicsiga faa'iidadiisa kaliya inay isku koobnayn miisaan dhimista waa muhiim haddaa rabtid inaad faa'iido qurxoon faa'iido weyn natiijo qurxoon jir qurxoon inaad heshid haddaad rabtid waa muhiim inaad ku darsatid jimicsi daayetka ama cuntada aad sameynaysid waxaa idinla wadaagayaa insha Allah jimicsiga waa 2 qaybood buu u kala baxaa qaybta ugu horeysa waxaa la dhahaa cardioga waxaa waaye wixii jimicsi ah oo markaad sameynaysid wadnaha si xoog u garaacmaayo dhididkiisana aad u badan yahay dabcan cardioga waxay noocyo badan baa ka jira sida xarig booda ugu muhiimsan orodka ha ahaado maxay ahayd ama orod caadi ah ama orod lagu ordaayo mashiinka oo maxay ahayd yaallo jimyada sidoo kale cardioga maxay wuxuu u fiican yahay qofkii rabo in miisaan oo dhaqsa inuu iska rido maxaa jira dhe cardioga wuxuu dhalaalinayaa xayrta jirka cardioga waxaa muhiim u yahay wuxuu shaqaysiinayaa wadnaha waxaad dareemaysaa inuu maxay afka ku soo galaayo markaad cardio sameynaysid ama aad sameynaysid yani jimicsi oo sida cardioga ah oo aad u culus culaysna waxaa ka wadaa yani aad u xoog badan ama maxay ahayd dhaqso badan saa u jeedin kilibyada waxaa noocyo badanaa jira ama orod ama boodboodka sida jumping jacks ama socodka oo maxay ahayd oo xoog ah orodka caadiga ama orodka treadmillka ama mashiinada oo jimka yaalo marka cardioga waa muhiim xagga haddaa rabtid inaad miisaan badan iska ridid ciyow aad maxay ahayd rabtid maxay xayrta badan inaad iska dhalaalisid nooca labaad waxaa la dhahaa strength training ama tamaariin almuqaawama noocan waa asagana nooc kamid ah jimicsiga wuxuu uga duwan yahay cardioga boodbood ama orod kuma jiro laakiin waxaad isticmaalaysaa murqaha jirka iyo maxay ahayd birtaad qaadaysaa dabcan 2 nooc waa strength trainingka haddaadan haysin birta waxaad isticmaali kartaa korkaaga yani maxay ahayd yani miisaanka korkaaga isticmaalaysaa ama birtaad isticmaalaysaa dabcan boodbood kuma jiro maxay ahayd noocan jimicsiga laakiin faa'iidooyin badan buu leeyahay qofkii birta qaada ama strength training ka sameeya jirkiisa waxaa dareemaysaa murqiisa way dhisan yihiin sidoo kale jirka balaq kama galaayo cardio kaliya la iskuma hadleeyo waxaa lagu darsadaa strength training
طبعا سيدا محاد اسكواتكا هذا ان هداdan haysan birta iskuwaadka caadiga sameyn kartaa waxa sameyn kartaa lungeska nuucyo badan baa jira strength trainingka hadaad haysan birta laakiin birta waa fiican tahay waa muhiim inaad ku darsatid hadaa rabtid korkaaga inuu taagnaado oo aadan ka dareemin balaq dad baa arkaysaa korkooda yacni maxay xoogaa jiljilcan yahay iyo dad korkooda si fiican isku haysta marka strength training wuxuu ku fiican yahay jirka maxaa uu dhisaaya uu qurxinaaya sidoo kale xayrtan uu dhalaalinaya laakiin wuxuu ku darsaday jirka dhisidiisa iyo qurxintiisa dabcan birta kaliya nimanka looguma talagalin gabdhaha kaliya gabdhahana way qaadi karaan birta miisaamo ku anfacaya qaadaysa aad culays u ahayn xarajayna ka faa'iideen fiidiyogan inaad ka istifiideen like iyo share subscribe iga ilaawina qayr idin rajayn